in la helo xarun wanaagsan oo wasaaraddu ku shaqeyso ofisyo wanaagsan ku shaqeyso wasaaraddu aad bay muhiim u tahay. dhabtu waxaa weeye waana ka hadasheen warbixinta hadda aada bixinayseen kheyraadka la hubo oo laisku haleyn karo dalkeenu leeyahay waa kalluumaysi. xoolaheeni waa la socotaan abaartii dhacday 2017 in ka badan 50% waa ay fursada ka baxeen oo waa dhumeen. sida muuqatana abaarta Soomaaliya ka jirta ee mar walba saameynaysa xoolo dhaqatadu waa mid sikli kale oo soo laalaabanayso oo dee sanad walba haddii sanad ay moogaa sanadka dambe abaar baa dalka ka jirta. dhulku waa sii xaalufayaa, xooluhu waa dhammaanayaan. inkastoo aan u baahnaan lahayn inaanu la nimaadno nidaam cusub oo sida adduunka xoolaha loo dhaqdo aan u dhaqanno. xoolaha la daba xoolo degan oo sedentary ah sida adduunka xoolaha looga dhaqdo inaanu dadkeeni yani labaraa loo baahan yahay. de waa wasaaradda xanaanaha xoolaha ku shaqala howlahaas iyo cidda kaloo shaqadaa qabanaysa, laakiin qaabka hadda waxu dhaqana xoolahahay wuxuu eegyahay qaab aan sustainable ahayn ilaa mustaqbalka. kalluunka hadda waa la wada bartayoo waaga hore dad yar baa cuni jiray, laakiin hadda wuxuu noqday stable dietku ka mid noqday. dadka hadda reer muduga iyo dadka reer miyiga baa ugu badan dadka kalluunka cunayo sida dal sheegay. marka in kalluunkii loo sameeyo system local consumptionka gudaha dadka laga haqabtiro oo maanta qofka kalluun u baahan Puntland uusan kalluun waayin waa kow. midda labaad inaanu helno system aanu kalluunka loo process gareeyo oo isagoo value added leh aanu ninka ku imaanayo oo shati kaa goosanaya boqolku ku siinaya milyan buu ka sameynaya. marka inaanu la nimaadno system wanaagsan oo anagu kalluunkeeni aanu dhoofsan karo isaga oo la habeeyey oo la process gareeyey oo wanaagsan aanu sameyno ayaa loo baahan yahay. marka hawshaas waa socotaa. wasaaraddan runtii waa bogaadinaya. runtii inta aan nimid isbedel weyn ayaa wasaaraddan ay samaysay dhanka tayada shaqaalaha, dhanka dakhliga iyo wax soo saarka. waa ku hadda isku tashaday oo doomaha samaysanayo ciidamada badda ayaga u gaara sameynayo oo maalin walba dee war suuqa lala wareegayo badda waa la xaarufinaya iyo jariif badan baa ka jirayo nonsense. waxaa beenahoo cariga la dhurayo in wasaaraddu shaqeynayso, BMBF shaqeynayso, wadajir dhow ay wada shaqeyn dhow ay leeyihiin iyaga BMBF ay u wada shaqeeyaan. baddanina waa safe maanta. dabcan kalluunku saa sheegay waa dhiman in laga faa'iisto weeye. shatiyana waa la goynaya, waa laga kalluumaysanaya si sharci laakiin loo kalluumaysto ayaa rabnaa oo sharci darradu ay yaraato. ogaadana maraakiibtu iskama timaado sharci darrada haddaan dad Soomaaliyihi aysan la socon. badanaaba waxa shidada abuuraa oo keena oo dalka horgalayaasha ah oo doomaha sharci darrada wada oo marka sharci darrada waa Soomaali weey. kuwa reer Puntland ayaa ugu horeeya waxaa ka shaqeeya. marka ay waqtiga inay ka waantoobaan oo ay wasaaradda si fiican ula shaqeeyaan. qofkii si nidaam ah oo sharci soo maraya oo ka kalluumaysanaya waa alxamdulillah soo dhaweynaynaa, laakiin ma aqbalayno inaba leekaatay zero tolerance 1% oo wadada in laga kalluumaysto oo sharci darro ah ma aqbalayno. wixii tabar noo diido meesheeda weeye, laakiin wasaaradda iyo anagu waa naga go-an tahay in kheyraadkeena aan ilaashano. waxeenni wey waa xoolaheeni. marka badda laga kalluumaysanayo oo laga jilaabay sharci darro ah waa nin guriga ugu soo dhacayoo ya maacuntaadii qaatay wey. maaha maaragtay xoolaheeni wey waa anaga iskale our resources. marka waxaa loo baahan inaanu ilaashano si xoog loo ilaalino ayaana laka rabaa. wasaaradduna maalin ka dambeysa horumarka ay hadda ay wado ay sii wado oo horumar baa hadda socda. mashaariic badan baa socda, hay'ado badan ay wadaan sida ARC ay noo sheegeen iyo agaasimaha guudba. marka mashaariicdaasna dadka looga faa'iideeyo, la xirfadeeyo, la tababaro ya oo in badan oo dadkeena shaqo la'aan tahay iyo dhalinyarada aan tahriibayahay dhulkay ka shaqaysan karaan oo dhaqaale fiican kasoo saari karaan. marka
hawshaasi waxaan leeyahay ha socoto insha allah.